iyadoo maalmihii u dambeeyay la waday howlaha nabadeyn ee gobolkaasi Sanaag gaar ahaan deegaanada Ceelaf Weyn iyo guud ahaanba gobolka ayaa saaka munaasabad ballaaran oo si heer sare loo soo gaasimay waxay ka dhacday howlka shirarka ee degmadaasi Ceelaf Weyn munaasabadan oo ujeedkeedu daaranaa wareejinta gacan ku dhiigle dhawaan dil ka geystay deegaano kamid ah gobolkaasi Sanaag gaar ahaan deegaanka Carro oo kamid ah deegaanada gobolkaasi Sanaag waxaana munaasabada wareejinta gacan ku dhiiglahan ee xukuumadda lagu wareejinayay ka soo qayb galay wafdigii nabadeynta ee wasiirada ee xukuumadda Soomaaliland u soo dirtay deegaanadaasi Ceelaf Weyn salaadiin madax dhaqameed tiro badan oo ka kala yimid gobolada dalka oo jooga howlo nabadeyn iyo waliba labadii ardaa ee dilkaasi kala gaaray ugu horreyn waxaa halkaasi kulanka wareejinta gacan ku dhiiglahan markii ay soo dhamaatay halkaasi saxaafadda uga waramay barasaabka gobolkaasi Sanaag Maxamed Axmed Caalin Tiimbare iyo waliba wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed waxayna labadaasi beelood labadaasi ardaa ku amaaneen mahadda maanta ilaahay baa iskale maanta waxaa shir ballaaran aanu ku soo gabagabaynay oo aanu kula soo wareegnay gacan ku dhiglihii dilay carro ka geeyay oo maanta la keenay waxaanu aad iyo aad ugu hambalyaynaynaa dhammaan madax dhaqameedkii ka howlgalay iyo dhallinyaradii hawshaa soo fulisay waxaana la wareegay xukuumadda gacanta xukuumaddu ku jiraa insha allah odayaashina si wanaagsan bay ugu wada hadleen waxaanu filaynaa arrintaasuna inay si dhaqsaa ay u soo gabagowdo laa tasaaul lixsaan ila lixsaan wanaagunbaa kaba wanaag baa la sameeyey waxaanu filaynaa inaynu wanaag ay ku dhammaato shir weyn oo aad u ballaaran ayaa isugu yimi halkan oo ka kooban golaha wasiirada nabadeynta ereyadan fadhigaabi halkan u joogta gudoomiyaha gobolka salaadiinta meelaha halkan degan dhammaantood isaga yimi ilaa iyo meel walba Ceerigaaba Burco arrintaa barasaabka uu sheegay shilkii ka dhacay Carro oo degmada Yufla aad iyo aad ayay uga howlgaleen meeshii shilka geysatay وقاشود iyo salaadiintooda iyo waayeelkeed iyo waxgaradkooda iyo dhalinyaradoodu saasay awgeed bay ku soo guuleysteen in gacan ku dhiiglaha ay soo qabtaan salaadiinta kale ee deegaankan ayaa iyana ka qayb galay oo kamid Suldaan Saciid Yuusuf Ducaale maanta golaha weyn baa la keenay waxa lagu wareejiyay dhinacii kale shilku ku dhacay oo uu hormuud ka yahay Suldaan Saleebaan Cawl Dirir arrinkaasi wanaagsan ayaa hadday codsi la isu jeedinayo tahay iyo hadday tahay munaasabadda ka hadalkeedaba tahay ayaa aad iyo aad labada dhinacba ay isu goridaarsadeen oo sharaf leh oo wanaag leh gacan ku dhiglihiina gacanta xukuumadda lagu soo wareejiyey maamulka gobolkan annaguna ku wareejinay iyaga wixii wada hadal ah kalanada uu sii dhexmari doonaa aad iyo aad u wanaagsan oo nabadgelyada wax ka taraysa wada noolaanshaha iyo wada jirka wax ka taraysa oo geesta kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay Suldaan Saleebaan Cawil Dirir iyo waliba Chief Caaqil Axmed Warsangeli wax ku dilay Carro beeshi waa ka tacsiyadeynayna anana in badan baanu raacda ku jiray shimugle ugu jiray maanta beeshi baan ku wareejinay dawladda iyana ku wareejisay aad iyo aad baanu leenahay beeraha kalena wixii kala maqan insha Allah in lagu xalalo wanaag iyo tulimo way ku wanaagsan tahay la soo qabto maanta taajidka aanu jeexnay insha Allah hal mariyo kaasay wax ku hagaagayaan anana walaalahayo waxaanu ka rabnaa wanaag iyo inaanu dad isku mid weeye dad isdhalay weeye dad aan kala maarmi weeye dad meel wadayaala weeye inaanu wanaag wixii na dhaxmara arab iyo labadii dambe isugu dhow oo dadku wasqanayna inaynu ku dhamaysano wanaag baanu diyaar u nahay ulana soconay ulana fadhina mar walba iyo mar aan ka gudoomay beesha bah Sambuur
saxnaa basanbuur baan ka guddoomay gacan ku dhiiglihii dilka ka geystay deegaanka Caro anigoo ku metelaya ama ka wakiila beesha Muuse Ismaaciil khaasatan Muuse Turwa ayaan ka guddoomay inaan ka gacan ku dhiiglahay halka dilka ka geystay waxaana ku wareejiyay ciidamada amniga taliya qaybeedka gobolka ayaan ku wareejiyay iyo barasaabka dawladda ninkaas gacanta loo geliyay waxaan aad ugu mahadnaqayaa beeshii soo qabatay gacan ku dhiiglaha xilka weyn iska saartay ku dadaashay nabadda aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan leeyahay ilaahay idinka abaalmariyo Axmed Maxamed Cilmi on Cable TV Elefwiil